حين بعض الصحافة marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad kaga mahadceliyo sida aad runtii ummadda Soomaaliyeed uga qabtirtaan warbaahinta sida la socotaanba maalmahan waxa socday howlgallo amniga lagu sugay caasimadda inaga maamulkii gobolka Dahna maamulkii shacabka waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa oo xalaal wixii loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suura geliyo maalmahan waxaan socday shirar amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay ujeedaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arintaas ku aadan si taas loo helo waxa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimadda waxaan rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan wada cashano waa dareemi karnaa in culaysyo ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culeysyadaas jiro dulqaad la muujiyo samir annaga maamulka haddaan nahayna sidii shacabka loogu adeegi lahaa waxaan diyaarinay basas iyo ambulance iyo wax alaale wixii lagu taageeri lahaa shacabka gaar ahaan shacabkeena tabaalaysan oo goobaha uu ka socdo howlgallada ay saameyn ku yeelato wadooyinka xiranna inaan u diyaarinay gaadiid loogu talagalay oo haddii qof nugul ama waayeel ama caruur ama dad bukaana ay u baahan yihiin meel alaal meesha rabaan ha noqoto isbitaallo iyo howlaha muhiimka runtii howlgalku waa howlgal qorshaysan oo aan rabno annaga arrimaha aan rabno bulshada in lala wadaagana waxay tahay laguna ballamay hay'adaha amnigu inay maalin walba warbixin idin sii doonaan howlgal walba iyo waxa ka qabsoomay howlgalku wuxuu isugu jiraa laba nooc mid warbixinno oo hay'adaha sirdoonku ay soo heleen oo la beegsanayo kooxo argagixiso ku dhuumaalaysanayso guryo oo guryaha si gaar ah loo abaari doono laakiin la rabo dariska in ayagana maaragtay aysan argagax ku noqon isla markaana ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga oo aan ilaa haddana aan aaminsanahay in wax badan arrimahaas laga qabtay shacab badan oo warbixin la soo gudbiyena ayagana lagu guda jiro mid kale waxay tahay bacdama qaraxu uu noqday mid loo isticmaalo aalad gaadiid iyo qalabba in meelaha dhici karta in gaadiidkaas lagu soo buuxiyo ama gaadiidka naftirkoodii sidii xal loogu heli lahaa oo dhici karta wadamo qaarkood wadooyin qaarkood in si kumeel gaarana loo xiro isla markaana baaris dhab ah la sameeyo waayo haddii aan taas la sameyn waxay noqonay badbaadada shacabka intaas waxaa sii dheer ciidamada in tababarro aada la siiyey la dardaaranay la hadalnay haddana aad arki doontaan sida ay bulshada ula dhaqmaan runtii inay aad uga duwanaan doonto siyaalihii hore isla markaana annaga mar walba aan taaganna shacabka sidii loogu nixi lahaa loogala shaqeyn lahaa marka waa howlgallo noocyo badan isugu jira marka waxaan rabnaa warbaahintan arrintaas inay si gaara noogala shaqeyso waxaa jiri doona fursado warbaahinta dhan inta la wado meelaha howlgal ka socdaan hay'adaha amniga aad raaci doontaan aad indhihiin ku soo arki doontaan